Goobeen oo Kismaayo dhanka waqooyi ugu beegan 15 kiiloomitir waa deegaankii noqon lahaa meesha ay dalxiisayaasha dunida Soomaaliya kaga soo booqan lahaayeen marka loo eego kheyraadka badan ee alla ku manaystay oo halka wabiga Jubba oo kaga daro badweynta Hindiya xoolo dhaqashada iyo beeraha ayay sidoo kale ku wacan tahay dhammaan bilaha sanadka oo dhan waa deegaan aad u bilaax qurxoon leh imilo wanaagsan isla markaana soo jiiteen dhaha hareeraha wabiga waxaa ku taysan geedo qumbe naarjiina iyo beero kuwa oo qof walba oo yimaado ku reebeysa xasuus aan gooyn waa deegaan taariikh fog ku leh dhulka gobolada dalka Soomaaliya kuna aan baxsan waqtigii gumeystaha iyo ka horba ka ganacsiga dalaga Maxamed Ibrahim Hoola oo ka mid ah dadka deegaanka oo inta badan ku nool Goobeen ayaa iga waramay taariikhda iyo marxaladii ay soo martay Goobeen waa tuulo aad u taariikh dheer taariikhi ah burbur dagaal waxba halakay sida ogteen waxa waaye mudooyinkan dhulkii waa dadku waa barakay hadda aan ku sugnaay waa tuulo ilaa waqtigii Talyaanigii ilaa saacadaas oo meesh kale oo soo Kismaayo ka shidal qaado Kismaayo hadda maqashaan waa isku daraha Goobeen Jubbaland hadda marka wabiga Jubba waa kan meesha maray waa tuulo ka taariikh dheer Kismaayo dad waxa ku nool shacab beeraley iyo xoololey iyo kalluumaysiga iska masaakiina waxba haysan inkastoo aysan helin maalgelin ku haboon haddana waxay sameynaysaa horumar si tartiib ku socda dadka deegaan oo ka badnayn 500 oo qoys waxay ku tiirsan yihiin beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga Maxamed Faarax Deeq waxa uu ka mid yahay kalluumaysatada ku nool deegaanka Goobeen waxaan kula kulmay jiinka wabiga isagoo ku guda jira hawl maalmeedkiisa shaqo wuxuu ii sheegay inay jiraan fursado badan oo ay ka mid tahay dhaqashada xoolaha kalluumaysiga iyo beeridda dalaga fursadaha ka banaan meeshan waxa ka mid ah malayga hadii aad rabto badda hadii aad rabto wabiga labada noocba waxa laga helaa isku darka meel oo badda iska waxa lagu gaaraa doomanka aan arkaysaan oo huuriga aan suuq ku shaqtagnaa 5 saac oo soo noqona baawur aan qaadana Kismaayo loo qaadaa malayga oo laga soo saaro shabaagay yaryar waxaan haysanaa oo caag ah kuwaasaan ku xamaalna ninkii oo Jaanis haysto doon heli karo Jaanis oo ku faa'iideysan laabo kaas maalintii ugu yaraan waa baawur waa ka rarna halkan waa halka isaga daraan biyaha wabiga Jubba iyo badweynta Hindiya dadka qaarkii way ku adag tahay in halkan soo gaaraan si ay u arkaan balse inaan halkan soo gaaro waxay igu qaadatay inaan muddo 5 saacadood aan u soo lugeeyo si aan halkan u soo gaaro ma ahan dalxiis oo kaliya balse Goobeen waxa ka banaan fursado maalgashi oo badan sida kalluumaysiga iyo beeraha maadaama hadda ay tahay goob amni ah oo ku taala meel istiraatiiji ah Abshir Yusuf Maxamed waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka ku nool magaalada Kismaayo waxa uu ii sheegay inay jirto fursado waaweyn oo maalgashineed oo laga sameyn karo deegaanka Goobeen marka waa runtii waa meel ku haboon dalxiiska marka aad fiiriso wabigii iyo badii oo isa saaran oo meeshii ay isku daraayeen ah cagaarka dhulka marka roobka uu dooyo barwaaqada dhacaysa waa meel u baahan in loo dalxiisto sida darteed Jaanis ka banaan dalxiis waxa waaye dadka inta badan dalxiiska soo dhaweeyo oo kale ama wasaaradda dalxiis ha noqoto ama dad ganacsato ha noqoto ama company ha noqoto inay ka sameeyaan beero loogu talagalay dalxiis oo qofka markuu wadankii imaado ama qofka wadankii sii joogay ah meel uu ku nasan karo ku soo dalxiisi karo eelkiisa uu kula soo damaashaadi karo xayawaano lagu xanaaneeyo runtii waxaan isdii karaa Jaaniska waa Jaanis banaan Jubbaland oo deegaanka Goobeen u aragta in la qaalo weyn laga sameyn karo balse wali waxay qorsheynaysaa diyaarinta mashaariic waaweyn oo laga faa'iideysan karo oo laga hirgeliyo deegaanka Goobeen agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Ali Dabiici Faarax ayaa yiri waxa jira mashaariic laga fulinayo deegaanka Goobeen si dalxiisayaasha dunida ay ugu soo dalxiisagaan maadaama dawlad goboleedka Jubbaland ay xoog saarayso sidii loo horumarin lahaa deegaanka dalxiiska ku wanaagsan ee ku yaala gobolka Goobeen runtii waxa loo wada arkayaa inay tahay xarunta hadda ee kaliya ee dalxiiska ku haboon waa number 1 marka xigta waxaan leeyahay marka ka wasaarad ahaan waxa kaga aadan waxba inooga diyaarsan qorshe weyn ba inooga diyaarsan waxaan xitaa doonaynaa inaan ka sameeyno arrimihii dalxiiska ee hotel Wamo ee hadda dalxiiska la degay xitaa inaan xagga u rari doono ka wasaarad ahaan waxaan hadda diyaarinaynay policy ama sharci qaban kara qofka ku xadgudbo qofka dalxiisaga ah ama haddii qofka dalxiisaga uu xadgudbo maxaa qabani karo maadaama amniga maanta Soomaaliya oo dhan uu iska yahay mid maaragtay iska yar hooseeyo laakiin alxamdulillah Jubbaland aan ku faanayna maanta nabada aan haysano
qorshe wanaagsan baa inoo degsanaa oo inooga taagnaa waxaan doonaynaa hotel Wamo iyo wixii lagu garan jiray muxuu ahaa dalxiisayaasha waxaan xitaa doonaynaa insha Allah taala wasaaradda dhismaheeda inuu noqdo goobayn hadduu Ilaahay ka raali noqdo marka qorshe fiican baan haynaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo waxaan leeyahay dalku waa dalkiina gobolku waa gobolkiina imaada oo maalgashada hantida aad banaanka kula maqantiin runtii waxa u baahan in laga faa'iido wiilka tahriibaya haddii dadkaas ay yimaadaan oo ay damcaan inay wax maalgashadaan midka tahriibaya wiilka iyo gabadha tahriibayso yaa xitaa waxay u noqon kartaa inay hor istaag ku noqoto wadanka uu shaqo ka helo marka walaalayaal laalinta tahriibayso qayb bad ka tiine wadankii Soomaaliya goobayn Soomaaliya Jubbaland Soomaaliya aad baad mahadsantiin Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed deegaanka goobayn ee gobolka Jubbada Hoose